dagaal culus ayaa caawa waxa uu ka dhacay daljirka Daason ee magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. warar kala duwan ayaa waxa uu ka soo baxay musharaxiinta dalka Soomaaliya. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda war ka soo saartay dagaalkaasi. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in weerar cad lagu soo qaaday hoteelka uu ka degan yahay magaalada Muqdisho isaga iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. qadka telefonka ayuu si toos ah ugu jira madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. mudan madaxweyne soo dhawow marka hore, marka xiga halkee hadda joogtaa? waxaan joogaa hoteelka Maida. waayahay, sidee wax u dhaceen caawa? waxay wax u dhaceen hoteelka deganayn barxadda oo daljirka Daasoon kama foga, waa la wada garanayaa. marka xilli dambe ayaa ciidamada dowladda ka tirsan oo duulaya inta yimaadeen hoteelkana soo xabadeeyeen barxaddii daljirka Daasoon oo maadaama subaxdii uu ka dhacayo banaanbax securitygeeda iyo baaritaan iyo wax lagu hayay waa soo weerareen. marka xabado badan bay meesha ku rideen, waa la raacdeeyey, waa la iska cabiyey, waa carareen, dib u noqdeen. adigu dadna waa ku dhaawacmay, hadda weli aan aad loo soo xaqiijinin. marka dhibaatadaas meesha ka dhacday, waana haddana waa tageen, nimanka ma joogaan. hadda marka dagaalka ma joogsaday mise weli waa socdaa? hadda dee waa istaagay, waa hadda xabad dhaco haysa ma jirto hadda saacadan. wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Xasan Xundubey war uu isagana soo saaray ayaa wuxuu sheegay madaxweyne in ciidamada dowladda fariisamaha ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho weerar lagu soo qaaday. sidoo kale idinkan waxaad sheegaysaan in weerar ladinku soo qaaday oo hoteelkiina la soo weeraray. hadalladaasi soo shacabka Soomaaliyeed kuma weerarayaan? may kuma weerarayaan. hoteelka Maida saldhig ciidan oo dowladda kuma yaalo. taalada daljirka Daasoon barxadda oo banaankaana saldhig ciidan dowladeed oo degan yahay kuma yaalo. marka waa iska maaweelo iyo beentii weligoodba ay dadka ku khaldi jireen oo sheegi jireen. waayahay, hadda idinku marka maxaad ka yeelaysaan? ciidamada dowladda oo beebayaal wata soo weeraray, dadkii meesha jooga staafka ay ilaalinayay iyo kuwii aan kulahay amniga meeshay baarayaan, maadaama subaxdii dad badan ay isugu imaanayeen in ay amnigeeda xaqiijiyaan oo aanba ku jiran howlahaas ay weerar kusoo qaadeen ayagoo baabuur beebayaal ah wata. way xabadeeyeen meeshaas dagaalku meeshaas ka dhacay. laba dhinac kale waa kasoo wareegeen, hoteelkiina waa soo xabadeeyeen, waa yimaadeen. marka saasaa wax u dhaceen. nimankani shalay iyo maanta iyo dhanna waa la ogaay banaanbaxaas nabadeed oo nabadda ku dhacaya ayay diidan yihiin inay kasoo horjeedaan. nimankan dalkii meel oo aad iyo aad oo ciriiri ah ayuu ku jiraa oo xaaladiisu ay xun tahay. doorashooyinkii la rabay dalka interimkii horta dowladda waa dhammaatay, madaxweynuhu waqtigiisu waa dhammaaday. doorashadii la rabay in la qabto ma qabanin, sooma muuqato doorasho hadda la qabanayo. marka dad iska jooga oo wax sharciyad ay dadka ku haystaan aanay jirin, laakiin ciidamo uun iska haysta, ciidamadii dowladdana si xun u isticmaalaya waaye. marka madaxweynaha ayaa arrintaas mas-uuliyaddiisa ay ku dhacaysaa, asaa ka mas-uul ah madaxweynihii hore ee xilkiisu dhammaaday. dagaalkana caawa meesha asaa soo abaabulay, amarkiisa lagu soo qaaday. maanta oo dhan iyo dad badan u tageen, odayaasha dhaqanka u tageen, in banaanbax nabadeedii ah loo sheegay, in colaadi jirina loo sheegay, wax walba waa loo sheegay. hase yeeshee ninka odagaa nin waxaas u cadiyin maaha, waa baabayaashii oo gado u daabulay qaybtii kasoo hartay oo meeshaa nacaw usoo diray. marka waa nin un usoo taagan dhiigga Soomaaliyeed inuu daadiyo. waaya, marka banaanbaxa beri aad ku baaqdeen miyuu dhacayaa mise wax baa iska bedelay? banaanbaxa sidiisa waa sidii loogu ballansanay waaye. barxadda jaa dadka qaar kusoo noqday haddaba joogo, kuwo kalena waa soo socdaan, waa imaan doonaan. banaanbaxu waa dhacayaa beri haddii la yidhaah. waxaad soo noqotay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya. Soomaaliyana meeshay ka timid mudan madaxweyne aad baad u og tahay. hadda in dalka uu dagaal ka dhaco dan miyaa ku jirtaas leedahay? ma garanayo dee waxaa adiga kugu qancinayo dalka inuu dagaal ka dhacayo. dalku haddii nin dictator oo dadka laaynayo uu joogo macnaheeda maaha in dagaal ka dhacayo. ninkan ciidan oo wataa maalin walba meeluu ku duulo waa ku laayo dadkii ku caburina, qaar waa ku dilaa, qaar waa ku barakicina, maamuladii waa ku dumina. ma u arka taas inay dagaal sokeeye tahay? waa nin soo waashayoo dalku inuu baaba'ayo, dadku inay baaba'aan, dhiigga inuu daato uu ka talinayo waay. marka dalkani dagaal sokeeye waa ka yimiday. dagaalada sokeeye shala qabaa'ila isdirirayay,
maanta qabaa'il isma haystaan dalkan dad federaal waa maamulaa ka jiro waa degan yihiin dalka intiisa kale magaaladan muqdisho xaafado ka mid ah ninka walba gacanta ku hayuu ka talinayay dalka intiisa kale waa soo daayay intii haddana ay muxuu ahay dadku dhiigooda daadinaya dadkii deganaa maadaama adigu aad tahay madaxweynihii hore sidoo kale sheekh shariifna uu meesha deganaa waxaa tihiin dad xasaanad leh oo wadanka shaqada ugu sareysa kasoo qabtay ilaa iyo haatan marka xiriir idinla soo sameeyeen wasaaradaha amniga ku shaqada leh miyaa jira oo ka walaacsan amnigeena waaba kuwa beenta sheegayo waana lasoo weerara leh nin asigiiba been sheegayo mas-uul oo annagaana lasoo weeraray hotel maa'ida saldhig dowladeed ku yaalla lasoo weeraray dhahayo miyaa muxuu ahay mas-uuliyad muxuu ahaay ilaalinayo ama ka fikirayo niyow dalkan dowlad kama jirto dhibaata ka dhacday waa dhammaaday sharciyaddii waa dhammaatay nidaamkii siyaasiga ah ee lagu heshiilahay meesha kama socdo marka khatar weyn ayaa soo socoto ninkan iyo nimankiisa saaxiibadaha oo la joogaay maanta ayay meel laga qaban kara joogaan dadka Soomaaliya inay soo baxaan codkooda ay banaanka keenaan si nabada ay kusoo dabaaldegaan qof iyo laba iyo saddex muxuu ahaayaan dilaynaa dadka inay ku cabsi geliyaan maalin walba beebayaal ordayo ee jireedka soo marsiyaan oo dadka lagu cabsi geliyo lagu caburiyo ma dadkan waa dad xor ah dalkan waa dal dimuqraadi ah lagama aqbalayo muxuu ahaay ciidaman dalka ku haysanaya ay waa caburinaya iyo qasabaan ku haysanaya xuquuqda asaasiga ah oo maxaan ku yiraahdaa dimuqraadiyaddu ay leedahay iyo muwaadinka Soomaaliyeed uu leeyahay waa in maxaan ku yiraahdaa ay shaqaysaa dadka Soomaaliyeed waxa uu baaqaynaa inay codkooda si nabada ula soo baxaan oo aanay ka cabsanin maxaan ku yiraahdaa cabsi gelinta ay kooxdan yar ninkan waashay oo dalka ku cayaarayo u wado waad maasan tahay kaasi waxa uu ahaa daawadayaal madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khadka taleefanka igula hadlayay isagoo jooga hotel Maa'ida ee magaalada Muqdisho